kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka African National Congress ANC ee haya talada dalka Koonfur Afrika isla markaana ay ka soo qayb galeen ganacsatada Soomaalida madaxda jaaliyadaha qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Cape Town ee dalka South Africa. ujeedada kulanka ayaa waxa ahayd in wada tashi uu dhex maro labada dhinac isla markaana ay kala qaataan warbixino iyo macluumaad labada dhinac ah si loo helo wada shaqeyn dhex marta ururka ANC iyo madaxda Soomaalida ay ku nool magaalada Cape Town loola dhageysan lahaa cabashooyinka Soomaalida ay ka tabanayaan dalka South Africa gaar ahaan ururka ANC ee iminka haya talada dalka Koonfur Afrika. Ababakeer oo ah madax ku xigeenka ururka ANC ee magaalada Cape Town ayaa sheegay in kulankan uu muhiim u ahaa in ay la qaataan jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town isla markaana ay ka helaan Soomaalida doorkooda ku aadan taageerada ururka ANC si ugu soo baxo doorashooyinka dalkan ka dhici doona bisha May 7-deeda. waxaana uu xusay in ururkooda uusan iloobi doonin kaalinta Soomaalida ay ka geysteen xilligii ay la dagaalamayeen cadaankii midabta koorka ee gumeysan jiray South Africa wixii ka horeeyay 1994. Now this afternoon we had a very fruitful meeting as ANC leadership together with the Somali people here. Now it is the very first time that I had such a close meeting with the Somali people, but it was a very fruitful meeting. Why I'm saying fruitful? Because I always believe that in the 60s, or 70s and the 80s, many of our people, African National Congress people, they fled the country because of the apartheid regime. And it was the other African countries like Angola, Somalia, and the other countries that actually housed our people. But today, I was very thankful to see the Somali faces now. We're going into elections now on the 7th of May. dhanka Soomaalida madax kala duwan oo halka uga hadlay ayaa soo bandhigay dhibaatooyinka ay kala kulmaan dalka South Africa iyo sida ururka ANC ay uga baahan yihiin inay wax uga qabtaan gaar ahaan dhanka ammaanka iyo sharciyada ay haystaan Soomaalida kuwa oo aan u saamaxeen inay ka qayb galaan doorashooyinka ka dhaca dalka Koonfur Afrika. waxaana ururka ANC uu ballan qaaday Soomaalida inuu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinka ay soo bandhigeen, waxaana gaar ahaan ay sheegeen in wax badan ay ka qaban doonaan dhinacyada sharciga si mustaqbalka soo socda loo helo Soomaali aad u fara badan oo u codeeya ururkaasi isla markaana dalka xuquuq fara badan ku yeesha. Amarta viva the ANC, viva the Somali people, viva Amarta. marka uu soo dhamaaday kulanka ayaa waxaa banaanka kula kulmay qaar ka mid ah madaxda jaaliyada iyo shacabkii ka qayb galay kuwa oo ka hadlay rajada ay ka qabaan waxa ka suuragali kara ballanqaadyada ay sameeyeen madaxda ururka ANC ee kulankaasi ka qayb galay. sida arkayseen waxa meesha ka dhacay shir u dhaxeeya Soomaalida iyo ANC marka waa wax in badan aan ku haminaynay ilaahayna maanta uu hirgeliyay waxaana ka dhalan karo Soomaalida iyo ANC markay isdhex galaan in xataa amaankii iyo dadka sharciyada lagu dhibo waxa soo dhan oo meesha inay ka baxaan. waxa kale oo iyadana ay calaamad u tahay in ibnaha ay iyaga laftoodu ay qaataan in ay ummadan caawiyaan sababtoo tahay waxay arkeen baahida uu leeyahay codku marka iyaga oo dantooda eegayay dantii Soomaaliduna ku dhex jirta oo ay wax badan ka fulayaan marka waxaan u arkaa inay tahay arrin aad ibnaha muhiimadeeda u leh aad u qaali ah. maanta kulanka ay yeesheen Soomaalida iyo madaxda ANC wuxuu u muuqdaa mid haddii laga rumeeyo wax badan looga faa'iideysan karo Soomaalida. Soomaalida waxay dalbadeen in loo sameeyo ama loo fududeeyo sharciga aydiga ANC waxay dalbadeen in codka la siiyo haddii ay iskaashadaan Soomaalida iyo ANC wax badan ay isbedeli. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, TV-ga qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.